وحقون بح إخوان الصدقة عجائبت هذا وحكم هذا هو مركز مقاشد نفط هذا وحي دم عيسى وحكتها شيئا بحس وحقيقة وين مضنتها قفك وحو صدقيستو وحك بدن با إلهي ugu bedela $1 hadaad bixiso kumanaan $1 ba Ilaahay kugu bedela xaqiiqo way waxa daliil u ah Aisha radhiyallahu anha gabadha muslimka ay bal dhageyso waa ummul mu'miniin waa qofka aad rabto ayadoo kale inaad noqoto oo jannada la gasho maalmaha kamid ah ayadoo sooman oo gurigeeda ay yaalaan 2 xabo oo khubus ah waa 2 xabo oo canjeela ama chapati ama rooti oo taqaanaan ayaa miskiin ba guriga ku soo garaacay gabar khadimada la joogtay way albaabka uu fur waayo way furtay si taa miskiin si taa xabad si hal bay siisay xoogaa kadib baa qof kale oo miskiin soo garaacay si taa waayo si taa miskiin kale si taa xabadka kale si taa yaa ummul mu'miniin maalin walba waxaad haysato intaad bixiso yaa hadhowna waxaad weedaa waxaad ku afuraysaa si taa iska daayay si xabadkii bay qaada way siisay xoogaa kadib ayaa qof kale albaabka soo gargaraacay bal fiiri ma miskiin kala hadii miskiin kala maxaa siin oo saddexaad albaabka taagan gabadhii baa albaabka furtay waxaa taagan nin adoon ah oo wuxuu wadaa dabaq saxan weyn oo neef ari ah waxaa dul saaran hilibkiisa la shiilay barbecue anagu naqaana sagdan la solay oo rooti dusha ka saaran yahay tira badan markaasuu wuxuu yiri ehelkayga reerkayga waxay ugu dhaheen ummul mu'miniina ugeeha ku afurtay waa hadiyad markii gabadha ay soo qaaday Aisha intii qasashay waxay tiri cun waa khubzun khayru min khubziki waa khubz ka khayr badan khubzkaaga iyo cun ilaahay agtiisu keenay ilaahay waa soo diray tabaaraka wa taala fadlka fiir bil ajiba wa Aisha labaday haysatay bay bixisay intaas oo rooti ay hilib loogu bedelay hadaa dhibaato ku haysato ama faqri ku hayo ama waxyaraan ku haysato Aisha ku day wax haysatay bixi wax ka badan ba ilaahay ku seen waxyaabaha صدقة وسميسة وحكمدة ومسألة عن إسلامي والله ما أنت ضد بدن مسلمين هؤلاء داووا مرضاكم بالصدقة قف كجرن صدقة كداوية ولقى حديث كالنبي انتان بقاش صلى الله عليه وسلم أسوق قف كجرن يهي ما أقصد إنها كداويس الصدقة سيد النبي صلى الله عليه وسلم وحاد علي إمام الحاكم أبو عبد الله الحاكم قصوين كان شيء انت بدن قف كهربا وحكى أخرسان كرا كتاب لها من عجائب الصدقة وعجيبة والصدقة شيء عجيب وغشاكيني عبد الله يعني إمام أبو عبد الله الحاكم أيها جشري وجهه وحكى صباح الضوء مركز اسبتاع اختار بوتلي وحكى السوسمي ده هو اللواعي ما لها كاملة أسوي الدرس آخرين يوجه عامي والشيخ إباطة كهيسته أيها وحا أركي وحصاد قال المساجد أبو عثمان الصابوني ودرس كأخمي شيخ عقيدة عانك كوها كتب كعقيدة هي فرق بدع إن الله رضي الله مركو صاد قال وحجري إمام أبو عثمان الصابوني وحجري ادعي إمام أبو عبد الله الحاكم إنه إلهي عافية تذكر وحيد إلهي عافية الصلاة الصبح يدن درس حديث شيخي أخريني أيها وراق وهرتي صلى الله عليه وسلم وراق ذي بفري وحكو قرن قبر بقى وحيد إنسان مسلمة حالي بقى وحن كل رياض النبي صلى الله عليه وسلم فيهم كأركي عجيب مكاسو النبي وحيويري وحاد كتر هذا أبو عبد الله الحاكم وحاد كل هذا يوسع الماء للمسلمين مسلمين بيها صدقيست شيخ الدرس يجيبوا الأمية مركو الأمية أيوه كعي قريس الدرب يصوح وكقضي بركد انتوني من حماليالا ويالي بيالا وشوي درس كيبا كعبي والله تدوبري كدب بوغيه ويدمادين ويبابين عجيب وي ما أنت قفك مسلم وحا هيستا كنسر وحا هيستا حنون وحا هيستا ديكر وحا كوهي حنون كست دايبيتك السنكربا كوهيسا حنون كستا كوهي حنون ما كوهي حديث كالنبي انتاد آمن تداو مرضاكم بصدقة بالفيربا صدقة بحصو بيحي إلهي أصوى الداوية بالأركي دونتا وين عادي مرة بدن وين عادي قصوين حديث أبعد دعيو هذا وقت كان الجوغان وحاد عادي قصة عجيبة لو عنو أو يرير أو والله عيارية أيام مد كمدة إرتا إيشا وحا كقلي قري وحبا كتشوي إيشا وين عاميسا وحبا كجرة دخاتيرتي لوجي أو تنوي كبقين إيشا ميشا مذوي دختر كسا وحوليا أنا عجيب ما تهابن كرو وخطر إيشان هذا أنت عبط إيشا هو بيلا يا عنب
hooyadii way iska oyday way dhibaatootay cunugii ma seexan karo indhihii biyaha ka da'aya maalintii dambe waxay maqashay nabiga sala allahu alay wasalam xadiidkiisa daa'u mardaakum bisadaqa ma nabigaa yidhi sala allahu alay wasalam arrinkaa waa inaan fiiriyo sadaqay bixisa sadaqa weyn bay bixisa waxay tiri usbuucii dambe cunugii baan check up dhakhtar geeyey dhakhtar baa wuxuu igu yidhi bay tiri bal anaa ku nasiibsanayo cunugaan baroodaynaya inaan qabo markaasuu markuu weysitaynayay ayuu ishii saas u taataabtay wixii oo cadda furduq ka soo yidhi oo bannaanka ku soo dhacay allahu akbar markaasuu dhakhtarka wuxuu yidhi wixii way soo baxeen gabadhii waxay qalbigeeda ku jirta daawu mardaakum bisadaqa nabiga sal alla alay slam cajiib weeye ka faa'iidayso akhi jirhaa ku haysta dhib baa ku haysta meel kale ha aadin waa caafimaad nebiguna baray sala allahu alay wasalam waa caafimaad cibaado ah ka faa'iidayso isku day samee waad ku caafimaadtaa insha allahu tacaala haddaad ku caafimaadi weydid xoogaa iimaankaagaa hooseeye eh intaad iimaanka xoojiso ood aamintid xadiidka nebiga samee waad ku daawoobaysaa xaqiiqo wey arrinkaas arrin kaloo cajiiba oo sadaqadu leedahay waxaa weeye arrinkaasi sadaqadu waxay celisaa balaayooyinka iyo musiibooyinka maanta musiibooyin baa dhacaya badan carruurta musiibaa ku dhici baabuur baa kula gadoomi jirkaa kugu dhici masaa'ib baa soo degi dukaan baa guban reer baa isfuri oo isdagaali qof baa waxaa ku dhacaya jiro deg dega musiibooyinkaa tirada badan ee dhacaya waxaa ilaahay ku difaacaa sadaqada waxyaabaa yaab kale waxaa ka mida moxamed ibnu wadaax raximahullah waa nin culimadii hore oo muslimiinta caanka ayd ka mida ayaa maalin maalmaha ka mida isagoo darsi xadiida akrinaya oo fadhiya ayaa waxaa usoo galay nin orday markaasuu wuxuu ku yidhi cunugaagii yaraa ayaa waxaa ku dhacday taayir baa beer lagu falayey beerta taayirada waaweyn oo loo jido oo lagu falayo ayaa ku dul dhacay sheekhii wuu fekeray wuu aamusay xoogaa wiilkii ardayga ah kitaabka akrinaya wuxuu yidhi wad darsiga sii wad wiilka darsiguu iska waday sheekhu iska aamusay waxba ma dhihin qof haddii la yidhi ilmahaygii baa balaayo ku dhacday oon kicin oon isbedelin oon qiiroonin oo aan ooyin oon nixin ka war darsigii markii uu xoogaa socday ayaa nin kale ordayaa soo galay markaasuu wuxuu yidhi abshir bishaarayso moxamed ibnu wadaaxow wiilkaagii taayirkii waan ka kicinay waxba ma gaarin maradiisii unbuu la haray maradii unbaa ku dhegtay taayirkii xabad wiilkii ma gaarin ninkii sheekhiyaa wuxuu yidhi awalaan yaabayey awal ayaan yaabanaa saaka waxaan arkay buu yidhi wiilkaa yarka ah oo albaabka maskiin soo gargaraacay xabado khubus oo rooti ah siinaya markaad hadda idhahdeen buu yidhi dhibaataa ku dhacday waxaa isu kay qaban weyday saakuu sadaqa baxsaday haddana musiibaa ku dhacday arrinka asalkuna wuxuu ahaa asadaqatu tadfacu albalaaya sadaqadu balaayooyinkay celisaa marka wuxuu yidhi waa isu kay qaban weyday laakiin waan fahansanaa inaan wax ku dhacayno qofkaas iimaankaa fiir akhi haddaad sadaqa baxsato ood maanta wax sadaqaysato musiiba kuguma dhacaysa dhibaata kuma taabanayso ma ku daraa qiso kale insha allahu tacaala waxaad moodaa qisooyinka aad bay u badan yahay qiso kale idinku daraya oo cajiiba waxaan rabaa qofka muslimkaa inuu dareemo fadliga ay sadaqadu leedahoon daawo ka raadin kitaabka min cajaa'ib sadaqa sheekha ayaa wuxuu qoray wuxuu yihi anoo meel nin macalimiinta ka mid oon ku kalsoonaa wuxuu ii sheegay buui anoo meel taagan baabuurta laga raaco ayaa wuxuu yihi waxaa ii yimid cunug yaroo ordaya oo miskiina markaasuu yaa cam adeerow waxaad isiisaa 10 riyaal 5 riyaal wax un isii aan khumus ku gato maxaad ku gadanaysaa shawaarmaan ku gadanaya 5 riyaal baa intaan soo bixiyaan siiyey buui 5 riyaal baa intuu aad u farxay buu la orday buu wuxuu ku galay iyo makhaayad buu galay wuxuu yihi anoo cunugii weli ka fakeray cunugii maskaxiisu ku jira ayaa wuxuu yihi waxaan anigii 4 kale yaa baabuur taxi isla kiraysanay wadamada muslimiin taxi waa la soo sheer garaya markaan xoogaa soconay ninkii taxi laha baa i caayay ورني هذه النحن باته أضاء كلام مقابل يقدر تكسر ورني هذه محل قرتها ورني خبيث باته النحن باته واستقال لي وحاربي وهاي العكتي يعل وكهر جاي العكتي ويسوع علي وساقته وسول له جاي ماشي عن تكسر كسر عني بعني أنا وحي حناقصا واستشيني أن ماشي إمد طاول كلام صار والله وحيد ما كان حوجات كذب سعني أيام وحن أنمد طابور كيو قدومي أو جبتي أفرتين يدرول كشنتي وكل إنتان وحن فهمي بيري صدقة ذي بقى يقصوا صارت يقربت مصيبة راس أخي وحنا حصتها ما أنت عباس صدقة سنة أذو مؤبي
waxaad dhici karta shil baabuur inaad kaga badbaadi musiibo carruurta inaad kaga badbaadi jirro xun inaad kaga badbaadi dukaankaa oo guban lahaa inaad kaga badbaadid waa security way waxaan hadda la yidhahdaa life insuransiga oo la geli dadku galaan way waa insurance way waxaad noqonaysaa qof ilaahay uu xifdiyey waxaan kusoo khatimayaa kelimadan hadduu qofku wax haysto ama uu xili karo oo wixii uu ku bakhaylo ilaan sadaqada maalka ilaahay baa bixiya ilaahayna dadka uu gacantooda geliya wuu imtixaamaya dadku qaar baa lacag haysta mid baa wax yar haysta mid baa wax badan haysta qof walba waxaa rabaa wuxuu haysta wax la-eg inuu bixiyo hadduu bixin waaya maxaa dhacaysa waxaa dhacaysa inta lagaa qaado ayaa mid kale oo bixinaya la siinaya ilahi wuxuu yidhi wain tatawallow yastabdil qawman hayrakum uma laa yakunu amhaalakum haddaad jeedsataan ilaahay wuxuu idinku bedelan qolo idinka fiican oo idinka oo kale aan ahaanayn oo idinka fiican qisaan ku xasuusinaya nin ayaa gabar aroosay habeenkii ugu horreysay arooska ayagoo casho dhigtay oo aad u faraxsan waa habeenkii la yidhaahdo innagu waxaan dhahnaa gabdho waxay dhahaan caawa habeenkaygii oo habeenkii aad ku lahayd nolosha wey oo faraxsan ayaa albaabka la miskiin kusoo gargaraacay gabadhii baa xagga albaabka xigta way istaagtay oo waxay tiri waa ayo suuye qof miskiin oo tuugsanaya way wax siiya markaasay tiri waa miskiin tuugsanaya suuye baxdhe cayri saacadaan oo kale yaa albaabada laisku soo garaaca marqaankiiba ilowsiyey iyo farxaddii wax walba gabadhi waxay tiri aniga orod naga tag wax ma ku siinayna bax naga tag ninka guriga lahaa xunkii soco bax ninkii waa iska tegay isagoo aad u niyad jabsan waxaa muddo kadib ninkii xaaskiisa waa iskhilaafeen muddaa waa la iskhilaafay waa la isdagaalay reerkii waa burburay ninkii naagta waa kala tagay waa isfureen ninkii buufis baa ku dhacay wuu waashay magaaladu iska galay isagoo waalan isagoo tuugsanaya oo ninkii waalan gabadhii intay ciddadii ka baxday oo iska joogtay baa nin kalaa guursaday gabadhii iyo ninkeedii dambe oo hameen isla cashaynayo guri fadhiya ayaa albaabka lagu soo gargaraacay hameen barkii say way istaagtay way soo noqotay waxay tii waa nin miskiin oo tuugsanaya markaasuu yidhi maasha allah ma miskiin baa caawa noo yimid ma ilaahay baaba dadkii naga soo doortay ilaahay baa nagu soo aadiyey cuntadaan sii lacag buu soo wixi lacagtaana ugu dar maxaan kuu qabaa naad u baahan tahay deh nin miskiinka waxaa la siiyey raashinkii iyo lacagtii isagoo faraxsan markuu jeedsaday ayaa gabadhii waxaa la rabaa inay farxdo soo maa iyadoo ilmaynaysa bay soo laabatay ninkii uu fiiriyey wuxuu ku yidhi maxaad la ilmaynaysaa walaalay kugu dhaco la ooyeysaa markaase waxay tidhi waxaan la ooyayaa ninka miskiinka albaabka taagnaa waa ninkii hore oo iqabi jiray fiir waa ninkii hore oo iqabi jiray waxaana ilaahay ku ciqaabay yaan u malaynayaa hameen baa isaga oo saan oo kale ila cashaynaya ayaa miskiin albaabka soo garaacay markaasuu si xun ula hadlay ninkii waan isfuray wuuna waashay miskiinkiina hameenka si xun buu u cayriyey ninkii qabay gabadha ayaa ooyay isaguna wuu ilmeeyey markaasay tii adigana maxaa kugu dhacay si waxaan la ooyayaa ninka hameenkaas tuugsanayo albaabka gargaraacayay anigu ahaa fiir kanaa reerka qabay sadaqadii buu diiday maalkiibuu ku bakhaylay waa la waalay reerkiibuu ka tegey mid kale oo sadaqaysta kii baa yaa fiicnaaday oo wax helay oo degay ilaahay dejiyey naagti baa ilaahay u guuriyey wain tatawallow yastabdil qawman hayrakum uma laa yakunu amhaalakum akhi ukhti walaalka muslimkaa gabadha muslimadda ah haddii maanta ilaahay shilin ku siiyey oo ilaahay wax ku siiyey oo aada shaqaysatid oo aada wax heli kartid waxaa jira dad badan oo baahan oo masaakiin waxaa jira hadda masaajidda way baahan yihiin dadkii ehelku way baahan yihiin meel walba baahi baa ka jirta wax sadaqayso sadaqana waxaa ugu fadli badan midda la siiyo sadaqa jaariya ku sadaqayso wax kastoo awoodi baxso insha allahu tacaala ilahay waxaan ka rajaynayaa inuu aniga iyo idinka sadaqadana jeclaysiiyo ilaahayna sadaqadaa maxsanay inuu ilaahay usan naga dayicin wixii kurba iyo dhibna haysana ilahay inuu nagaga faydo wasala allahuma calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbi wasalm